waxaad ogaanaysaa haddaadan aragti nolosha ka lahayn waxaad ku nooshaa aragtida dadka kale haddaadan aragti ka lahayn guurkaaga waxaad ku dhisataa qoyskaaga aragti qof kale ka timid waxa ku salaysan tahay fikir iyo maskax qof kale wax ka yimid maxaa yeelay adigu diyaar uma tihid adigu ma aysan kaa soo go'in wax la yiraahdo inaad aragti iyo vision nolosha ka yeelato haddaadan aragti ka lahayn waxbarashadaada waxaad baranaysaa fakaltiga saaxiibkaa barto maxaa yeelay isaga aad ku welinaysaa fasalka laakiin ma jili kartid oo ma keeni kartid heerka iyo qoondada nololeed u baahnayd waxaad taagnaanaysaa banaanka waxaad yani wakiil waxa kaaga noqonaya noloshaada dadka kale kugu hareeraysan waxa maanta tahay badana dhalinyaro intii daawanaysa waxa loo badan yahay dhalinyaro waxaad kugu jira wax la yiraahdo hiigsi iyo hami yaanu qornaanin yaanu meel ku cadaan laakiin waxa kugu jira rabitaan inaad hesho natiijo ka badan nolosha inta aad haysato waxay u badan tahay inaad jeceshahay inaad noqoto qofka ugu magaca iyo sumcadda badan dadkiisa qofka ugu saameynta wanaagsan ee ugu soo saarka badan dadkiisa qofka ugu taariikhda iyo quruxda badan markuu dhinto dadkiisa ama dunida ama yani gobolka iyo meeshaan deganahay qofka ugu iftiinka badan I know in aragti noocaas kugu jirto I know mid u dhow inay kugu jirto ama mid u dhigan tahay laakiin waxa dhibtan haysata ay tahay nolosha waan iska wajahnaa wixii naga hor yimaadaan qaadanaa wixii ay noo qarto ama wixii ay noo garato noloshu haba ahaatee inaan bishii $200 aan ka helno mushaare ayaan ku qanacnaa waan ku istaagnaa taasi ma aha nolol ololahan waxa rabnaa inaan ugu guurno hamigaabnida higsi yarida wax yar ku qancidda meela yar soo taabashada ee fadhiisiga iyo meelaha soo keenad ku fadhiisato waxa rabnaa inaan noqono bulsho qof walba oo ka kooban hamigiisu cirkaas joogo si waxa sabsako oo dhan aan uga fikirin si qabyaaladu u guurto oo aan u helno wax ka shisheeya maxay la qabyaalada hadda waxaan ugu qasbaya ma haysano vision ka shisheeya waxaan ku kacna aabaheeno wax ku raasada qabiil waxaan ku soo kacna walaalkeen naga weyn oo shaqo ku hela qabiil waxaan ku soo kacnay dadka nagu hareeraysan oo yani ku nool oo ku hadlo mawduucooda uu yahay focuskooda uu yahay qabiil taasaan ugu qasbaysa laakiin haddaan yeelano vision dheer ama aragti dheer oo ka sarreysa waxaas waa nolosha dadka aadanaha ah ee nagula nool dunidan aan wax kula qabsanayno aakhiradeena aan ugu shaqaysanayno waan iloobi doonaa qabiilka waan iloobi doonaa xaasidnimada waxaan noqon doonaa yani intaan competition iyo tartan micno daraa ku jiri lahayn waxaan ku jiri doonaa cooperation waan iskaashan doonaa sidaan aaminsanahay adigoo dhalinyaro ah markaad duqoodeed dad noqoto birita kama shalayn doontid shalay lacag ma aanan haysan kama shalayn doontid shalay layma jeclayn kama shalayn doontid shalay labiskayga ma qurxayn laakiin waxaad ka shalayn doontaa shalay waqtigay kama faa'iidaysan shalay waxba ma aanan baran markaan enerjiga haystay markaan dhalinyarada ahaa marka caqliga waqtiga iyo kartidu ii soo safteen waxba ma aanan qabsan waad ka shalayn doontaa I know aniga ku ballan qaadaya markaad duqoodeed dad noqoto inaad intaasba isweydiiso maanta ha ka fikirin waxyaabo yar yar u fikir inaad noloshaada meesha ugu sarreyso wax ugu tuurto ilaa aad ka gaartan aadan fadhiisan taasna waxaa sabab noqon kara inaad nolosha qorshe ka leedahay